madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa sheegay in Muqdisho uu u yimid si ambaqaadida dadaalo lagu doonayo isku keenida dhinacyada isku haya siyaasadda dalka taasi oo dalka gelinaysa hanaan doorasho oo la wada ogol yahay maanta oo taariikhda ku beegan tahay 20ka bisha May ee sanadka 2021 ayaa lagu balansan yahay in Muqdisho oo ka furmo shir lagu sii ambaqaaday heshiiskii 17 September ee jiheenta in dalka uu galo doorasho dadban waxaan u nimid shirkii waxaan ku nimid invitationkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu noo soo diray oo laga wada hadlayay arrimihii doorashooyinka sidii loo dhameystiri lahaa heshiisyadii hore loo soo galay oo loo dhaqan gelin lahaa 17 September iyo 16 February say u dhaqan gelin lahaayeen horeyna loogu socon lahaa dalkan uu doorasho u gali lahaa ummadda Soomaaliyeedna loo kalsooni gelin lahaa doorasho ay ku kalsoon tahay loo qaban lahaa baan u nimid insha Allah ta'ala dadaaladii badnaa oo la soo suubiyay iyo inta kale hartay inaan dhameystirnana waan u joognaa oo waa muhiim nin kasta oo Soomaali oo ka qayb qaatayna waa uga mahad celinaynaa dadaaladaas haddana waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraaho in sida ugu fiican oo ugu wanaagsan oo ay naga sugayaan dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeedba inay naga soo bixi doonto insha Allah shirkana loo wada dhamaan doono waxaan rabaa nin walba oo Soomaali ah mas'uuliyadda ka saaran nabadda iyo isu soo dhaweynta iyo horumarka Soomaaliya inuu mas'uuliyadiisa ka qaato qof kasta oo Soomaali oo muwaadin ah xil baa ka saaran inuu ka qaato si gooni ah saxaafadda inay ka shaqeeyaan wanaagga iyo dawladnimada iyo horumarka iyo nabadda inay ka shaqeeyaan aysan fariimo xun iyo wax ummadda Soomaaliyeed si kala geenay aysan qayb ka noqonin Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay warbaahinta City Johor